wadooyinkan oo lagu dhisay canshuurta laga qaado bulshada ku nool gobolka Banaadir ayaa ku kala yaala degmooyinka Garasbaaley, Waaberi, Xamar Jajab, Kaaraan iyo Cabdicasiis. halka uu dhagax dhigay ra'iisul wasaaruhu wado isku xirta dabka ilaa iyo isgoyska Bakaaraha ee degmooyinka Howlwadaag iyo Hodan. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in dib u dhiska wadooyinkan ay ka jawaabayaan in canshuurta laga qaado dadka Soomaaliyeed ay ku dhacdo gacan aamin ah oo dib loogu soo celiyo bulshada adeegyada ay u baahan yihiin loogu hirgeliyo isla markaana loogu bedelo horumar iyo amni. laamiyadan quruxda badan ee aan maanta qaarna xarig jarayno qaarna dhagax dhigayno waxay ka jawaabayaan su'aashiina ah waxoogaa yar oo canshuuraha ee nalaga guro xagee la geeyay. waa jawaabtii oo cad waata jawaabtii kuwana la idinku dhisay cidi kale ma keenin United Nations nabaysiin dawladda kale ma taageerin cid kale ma aysan keenin waa wixii la idinka qaaday oo la isku dardaray ayaa keenay in amnigu wanaagsanaado oo amniga la sugo iyo in horumar loo dhaqaaqo oo magaalada laamiyadan laga dhiso quruxda badan. marka canshuurta sideedaba la qaado waxaa loo qaadaa in dalka lagu horumariyo in dadka loogu adeego. marka inay dadkeenu sidaa u fahamsanaadaan gobolka Banaadir waa dadaaleen waa soo fakareen waa soo qorsheeyeen laakiin lacagtu waa tiini idinka aad bixiseen. marka wixii niba wax la idinku qabtay waxaa muuqata marka inaan la idinka xadin waxaa muuqata inaan la idinka boobin iyo inaan la idinka dhicin intaba way muuqataa. wixii ni oo saxa oo la idin habeeyey ayaa aad kor taagantihiin maanta in ilaahay lagu shukriyo dhammaanteen ayaa waajib inagu ah. waxaa kaloo waajib inagu ah in aan la sii shaqayno gobolka iyo dawladda oo aan canshuurta bixinno heer kasta oo aan nahayba. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir qorshihiisu yahay in guud ahaan wadooyinka caasimadda la dhiso isla markaana hadda kuwa la xarig jaray marka laga reebo ay jiraan kuwa kale oo maraya dhismahoodu meel wanaagsan dhawaana xariga laga jari doono. mashruucii aan wadnay oo ah isku tashiga dalkaaga ku dhisa $1 oo aan maanta wadadii saddexaad oo aan saakay ilaa iyo hadda xarig jarkeedii aan taaganahay degmooyinka Cabdicasiis iyo Kaaraan wada halbowle ah oo u dhaxaysay oo muddo badan burbursaneed muddo ra'iisul wasaare oo qofka maraba ama gabadha uurka leh markay martay baabuurka ama mootada saaran tahay xoogaa ilma degdeg ay ku dhixi jiray maanta waxay ku marayaan si niyad sami ah aysan walwal badan ka qabin in ay wax ka soo gaaraan wadadan ayda ah. taasina waxaa mas'uul ka ah mas'uuliyiintayna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dawladda Soomaaliya oo isku duuban. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in dhismaha wadooyinka caasimaddu ay kaalin weyn ka qaadanayaan isku socodka dadweynaha gaadiidka bilicda caasimadda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha isagoo xusay in Muqdisho ay cagta saartay jidka horumarka iyo dib u soo kabashada. jidkan quruxda badan ee la dhisay waxa uu ku qurux badan yahay inuu nadiif ahaado laakiin haddaynu bacda ku tuurno oo waxaa maxaan ku dhahaa kaaniga yar oo biyaha ka cabnayno ku dhex tuurno oo aynu guriga qashinka ka soo saarnay aynu ku dhex tuurno ku dhex daadino oo aynu wax walba dee oo aynu u marayno inay meel unde waa qashin qub aan ka dhigano dee laamiga la dhisay waxba inoo tari maayo bilicna ma keenayo. waxaan u baahannahay inaan qaadano dhaqanka ah in la ilaaliyo nadaafadda waana mas-uuliyadda dadka oo dhan waa mas-uuliyad wadareed. marka cid gaara gudoomiyaha kaligiisu ma xisaarna gudoomiyaasha waaxduhu ma xisaarna kuwa xaafadaha iyo maxaan ku dhahaa tabeelayaashu ma xisaarna booliisku ma xisaarna saxiix mas-uuliyad waa ka saaran tahay laakiin dadka oo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay.